markii aan qiyaastii 10 jir ahaa walaashayna ay ahayd 11 ama 12 jir hooyaday ayay noo sheegtay sheekadan waxay tidhi markaas iyadu waxay ahayd qiyaastii 4 ama 5 jir ayeeyadeed hooyadeed waxay deganayeen guri gariish ama trailer sariirta ayeeyo waxay dhigteen meel aad ugu dhow daaqada taas oo markii dambe noqotay khalad weyn maalin ka mid ah maalmaha shaqada ayeeyo waxay soo shaqaysay maalintii habeenkiina way seexdeen habeen dhexe hooyaday ayaa toostay waxay aragtay nin taagan bannaanka si toos ah u eegaya daaqada qolka way baqatay oo orod bay ugu gashay qolka ayeeyo waxayna tidhi waxaa deriska taagan nin cabsi leh laakiin ayeeyadu ma rumaysan waxay ku tidhi soo seexo waxba ma jiraan hooyaday markii ay dib ugu laabatay qolkeedii ninkii ma joogin si kastaba ha ahaatee waa ay si cad u xusuusatay muuqiisa wuu dheeraa qalfoofkiisu cad yahay timihiisuna way buurnaayeen oo bunni wasakh ah ayay ahaayeen dharkiisu wuxuu ahaa mid wasakh ah surwaal bunni ah iyo jaakad qof wadooyinka ku nool u eg hooyaday weli cabsi ayay ka qaaday waxayna u hoyatay sariirta ayeeyo inta ka hartay habeenkii subaxnimadii ayeeyo si hore ayay u toostay si ay shaqada u aado hooyadayna u geyso dadka ilmaha ilaaliya wax kasta waxay u ekaayeen caadi laakiin markay dib ugu soo laabteen guriga saacado kadib wax aan caadi ahayn ayaa muuqday markii ay soo gaareen trailerka ayeeyadu way istaagtay daaqadii ay hooyaday ninka ku aragtay ayaa si cad loo jaray oo laga gooyey wax kale lama taaban dahab ma lumin lacag ma lumin wax walba waa caadi marka laga reebo daaqada oo si nadiif ah looga qaaday ayeeyo ma sugin hal habeen gudahood ayay is urursadeen waxayna u guureen guriga awowayaasha ninkii mar dambe lama arag haye wansiye waxaan rabaa inaan ku wadaago sheeko i dhacday markii aan qiyaastii 10 jir ahaa waxaan ku noolayn guri yar oo qolalkiisu isdulmaraan labaday walaal waxay wada seexan jireen hal qol aniguna waxaan la seexan jiray hooyaday iyo walaashay yar qol kale habeen madow oo qiyaastii 3 subaxnimo ah aniga oo weli telefishinka ka daawanaya cartoons ayaa irida qolka si tartiib ah u furantay waxaan mooday inuu yahay mid ka mid ah walaalahay laakiin nuurka telefishinka xataa ma ifin jirkiisa wuu madowaa sida qof aan muuqan wuu fadhiistay geeska sariirtayda isaga oo aamusan oo wejigiisu u jeedo telefishinka waxaan si hoos ah u weydiiyey haddii uu doonayo inuu kanaalka bedelo laakiin wax jawaab ah ma uusan bixin hal muruq ma dhaqaaqin taasi waa wax aan caadi ahayn maxaa yeelay walaalkay mar walba wuu dhaqaaqaa mar walbana wuu iska rogrogtaa sariirta laakiin kan indhahana ma laabanayn jidhkuna ma dhaqaaqin in yar kadib waxaan u baahday musqusha si aamusnaan ah ayaan sariirta uga booday waxaanan u orday musqusha markii aan soo laabtay waxaan istaagay qolka walaalahay labadooduba way hurdeen si qoto dheer hoosna way iskugu duuduuban yihiin waxaan ogaaday inaan macquul ahayn in midkood uu qolkayga ku soo fadhiistay daqiiqada ka hor wadnahaygu uu garaacay gacmahayguna way gariireen waxaan ku orday qolkayga sariirtuna waxay ahayd madhan jidka madow wuu tegay ilaa maanta waan ka fikirayaa habeenkaas marna ma ogaan doono cida ama waxa fadhiistay agtayda runtii waxaa laga yaabaa inaan ku faraxsanahay inaanan helin jawaabtaas dugsigaygu wuxuu u muuqdaa mid caadi ah qaybo iftiin leh fasalo caadi ah waxyaab leh ma jiraan laakiin waxaa jiray sheekooyin cabsi leh oo dugsiga ku faafay sanado badan waxaa la sheegay in mar dugsiga nin soo galay oo ka goostay 2 dhegood oo dheeman ka samaysnaa gabadh ardayad ah marnaba ma hubo inay run tahay iyo in kale laakiin dadka way cabsi gelisay maalin caadi ah ayay dhacday waxaan aad u daalay markii aan fasalka ka soo baxay aniga iyo saaxiibaday ka tiye qaybta dugsiga ee aan maraynay ma jirin macallimiin iyo arday midna anaga oo keliya markaan soconaynay waxaan dareemay qof nagu fiirinaya markaan dib u eegay cid matalayn waxaan soo eegnay fasal albaabkiisu xirnaa iftiinkiisana dansanaa albaabku wuxuu lahaa daaqad yar oo galaas ah oo dusha sare ku yaal waxaanan arki karay gudaha waxaan arkay gabadh taagan aan dhaqaaqayn si toos ah iigu eegaysa maqaarkeedu wuxuu ahaa cad sida irdhow dhiigna wuxuu ka daadanayay dhegta hal ilbiriqsi kama dhaqaaqin katiya waxay weydiisay maxaa kugu dhacay laakiin waan aamusay gacanteeda ayaan qabsaday waanan orday markaan gaaray fasalkayaga timahayga iyo gacmahayga dareenkoodu wuxuu ahaa baraf markaan u sheegay waxa aan arkay indhaha katiya way kala baxeen dabadeed waxay ii sheegtay wax ay iyadu aragtay maalin ka hor waxay tidhi maalintii hore markii ay fasalka ka baxaysay macalinka ayaa ku yidhi dami iftiinka markay iswijka damisay waxay ku aragtay daaqada gabadh cad oo dhiig ka daadanayo dhegta way cabsatay waxayna ka carartay fasalka mana aysan cidna u sheegin intaan sheekada wadaagnay kadib weli waxaan dareemaynay qof naga daawanaya ilaa maanta waxaan isweydiiyaa haddii aanan ordi lahayn maxaa dhici lahaa waxaan qiyaastii ahaa 8 jir walaashayna waxay ahayd 10 jir waxaan ku barbaaray xaafad khatar badan oo dembiyo ka dhacaan maalin kasta booliiskuna mar walba joogaan wakhtigaas qoyskaygu wuxuu ku noolaa dhisme yar oo 2 dabaq ah albaab kasta waxaa looga baahan yahay fure si aad u gasho waxaana dabaq kasta ku jiray 2 guri oo keliya annaga waxaan ku noolayn mid ka mid ah kuwa dabaqa hoose habeen madow anigoo sariirta la jiifa walaashay yar iyo walaalkay hooyo iyo aabba fadhiyaan jikada ayaan maqalnay 5 qarbir ah oo ka dhacay albaabka hoose qof ayaa bilaabay inuu si xoog leh ugu garaaco albaabka gurigeena markii aan daaqada eegay 2 ilaa 4 nin ayaa bannaanka taagan oo si toos ah ii eegaya daaqadu ma lahayn quful taas oo ka dhigtay inay fudud tahay inay soo galaan walaashay iyo anigu waan qaylinay waxaanan qabsanay walaalkay hurdo ku jira waxaan ogaanay markii dambe in tirada ragga ahayd 5 laba waxay isku dayeen inay baxsadaan laakiin waa la qabtay waxaa lagu eedeeyey isku day dil iyo boob markii dambena waxay ahayd sababta ugu weyn ee aan u guurnay sanadkii 2019 maanta waxaan ahay 15 jir ku dhow 16 jir walaashayna waxay ku dhow dahay 18 jir weli habeenkaas wuxuu si cad ugu soo noqnoqda maskaxdayda